kulankan ay isugu yimaadeen hay'adaha amniga dalka oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlayay amniga dalka gaar ahaan gobolka Banaadir iyo howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka sameeyeen gobolka Banaadir iyo qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Hoose kaasi oo lagu soo qabqabtay maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka Al-Shabaab oo doonayay in magaalada Muqdisho ay ka fuliyaan fara lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed ee xilligan ku naaloonaya nabadda waxaana kulankaasi ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare taliyaha ciidamada xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmi Dhaqarshe taliyaha ciidamada badda Maday Nuurow Shiiqo saraakiil ka socday ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo xubno ka socday wadamada dawladda Soomaaliya ka taageera tababarada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed kulankaasi oo socday saacado badan ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay aasaaska xarunta oo xalay shirkani ka dhacay ee lagu magacaabo JOCC waxaana warbaahinta qaranka ka warbixiyay waxyaabihii kulankaasi ka soo baxay afayeenka wasaaradda amniga qaranka Maxamed Yuusuf Cismaan bismillaahir rahmaanir rahiim sida ujeedaan bacaawa sidii caadiga ahayd waxa shirkani looga hadlayay amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaaladan caasimadda ah ciidamada wadajirka ah ee xarunta dhexe ee loo yaqaan JOCC ee ku taala magaalada Muqdisho ee ka dhacday laba munaasabadood oo ah mid koobaad sanad guuradii kulankan ama shirkan shirweynahan iyo sanad guuradiisii ahayd maxaa la yiraahdaa in hal sano ka hor aasaskeedii halkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo qayb ka ahaa lagu aasasay isla markaasna sanad kadib mira dhalkeedii madaxweynaha halkan loogu sheegay caawa indhihiisan oo ku arkay wax qabadkii muddadii halkii sano ay xafiiskan uu jiray xafiiskan oo ah xafiis ay ka wada howlgalaan si wada jir ah dhammaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo saaxiibada kaba ee AMISOM iyo maxaa la yiraahdaa international partners wax la yiraahdo ama sidoo kale waxa xarunta JOCC lagu qabtay munaasabad lagu sagootinayay abaanduulihii ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee sanadkii aynu soo dhaafnay General Maize kaasi oo door weyn ku lahaa qorshihii magaalooyin badan looga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab waa kan mar kale afayeenka wasaaradda amniga qaranka oo ka hadlaya General Maize wuxuu ahaa lafdhabar u taagan runtii taakuleynta iyo riixidda dhammaan ciidamada qalabka sida gacan kasta uga baahdaan har iyo habeen wuxuu ahaa nin u taagan taliyaashii halkan ka hadlay oo kamid ahaa taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed General Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare sidoo kale wuxuu madaxweynaha hortiisa ku amaanay doorkii adkaa iyo xilliyadii adkaa iyo go'aanadii runtii wax tarka lahaa General Maize oo soo bandhigay shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga iyo sidii wada shaqayntii dhaweyd oo la lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa hay'adaha amniga dalka ugu hambalyeeyay sanad guurada koowaad ee ka soo wareegatay markii la hirgeliyay xarunta JOCC isagoona hoosta ka xariiqay in dhismaha xaruntaasi ay wax badan ka bedeshay amniga magaalada Muqdisho niyad jab weyn ay gaarsiisay kooxaha caadaystay daadinta dhiiga dadkeena ee Al-Shabaab dhinaca kale waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu bogaadin u jeediyay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ku guuleystay inay baabiyaan shabakado badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab mar kale aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo General Maize iyo shaqada laga qabtay xaruntan oo runtii wax badan ka bedeshay amniga magaalada Muqdisho iyo amniga halkan ayaa looga tashaday la fashiliyay howlo badan oo cadawga ay la damacsanaayeen dalkeena maalintii sanad ka hor xaruntan la bilaabayay duruufta amni ee magaalada Muqdisho sidaan ma ay ahayn duruufta amni ee Soomaaliya sidaan ma ay ahayn sabab weyn oo waxyaabaha ay xaaladaas isku bedeshayna waxa kamid ah jiritaanka centerkan iyo shaqadan la wada qabtay oo effort la isku wada geeyay ee Soomaalida iyo saaxiibadoodba ay isu geeyeen waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa saraakiisha Soomaalida ah ee waqtigooda halkan gelisay iyo saraakiisha saaxiibadeen ah ee ayaguna u soo safray dhul dheer uga soo safray sidii ay Soomaaliya
ay u saacidi lahaayeen mar kale waxaan ilaahnaa waa mahadsantiin dhammaantiin shaqadaad qabateen waa shaqo wanaagsan shaqadaha la sii kordhiyo hana la sii wado kulankani looga hadlayo amniga dalka gaar ahaan gobolkani banaadir ee uu ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa qayb ka qorshaha dowladda federaalk Soomaaliya ay ku doonayso adkeynta amniga dalka iyo dabargoynta kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Nasr Bashiir Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.